بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka taariikhdu waxay ku beegan tahay 16 bisha Febraayo sanadka 2024 daawadayaal barnaamijkeena qaybtan haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo qodobada aynu diiradda ku saari doono waxa kamid ah maxaa ka jira in isbitaalka Nasir ee Gaza ay ku dhex dhoomanayaan ama ay saldhig u tahay iska caabinta Falastiiniyiinta gaar ahaan Hamas jawaabta Hamas ee arrintan ka bixisay dagaalada iyo duqeymaha soconaya qorshooyinka halista ah ee markan ay maleegayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud sida ay tahay iyo qodobo kale ayaan idin haynaa ee soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir muuqaalka shargare oo la garay soo dad badan u gaara mahadsanid haddii lagu taagan yahay waqtiga salaada waxaan ka codsanayaa inaad soo gudato waajibaadka alle aynu badin akhrinta quraanka kariimka zikriga alle iyo salliga nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee intaasi waa dardaaran ee barnaamijka ayaynu gudagalaynaa weliba wararka tooska ee haata soo dhacaya maalintii 133 ayuu galay duulaanka gardarada Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza waxaana weli ay ku hanjabayaan inay weerar ku qaadi doonaan magaalada Rafah iyagoo sheegaya inay si taxadar leh u qorsheynayaan howlgal military sidoo kale iyadoo ay socdaan dagaalo ba'an oo ciidamada gumeysiga kula jiraan iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa guutada 664 ee Baratrobris waxaa laga saaray deegaanka Khan Yunis halka Al-Qassam ay shaaca ka qaaday in dagaalyahanadoodu ay weeraro xoogan ku qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil halkaas oo khasaare culus uu ka dhashay sidoo kale maamulaha isbitaalka qaliinka Al-Nasir Medical ayaa sheegay in 4 Falastiini ah lagu dilay daryeelka degdega ama qaybta emergency-ga taasoo ka dhalatay joojinta oksijiinta sabab la xiriirta koronto dhaliyaasha dhinaca kale wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa ku dhawaaqday maanta in korontadu ay ka go'day xarunta caafimaadka Nasir isla markaana sabab la xiriira ciidamada Israa'iil weerarada ay ku hayaan isbitaalkan iyo hareerihiisa dhankooda sirdoonka militariga Israa'iil ayaa sheegay in aanay si buuxda u wiiqi karin dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga Hamas hadafkuna aanu ahayn mid dhab ah mustaqbalka dhow dhanka siyaasadana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku wada xiriiray qadka telefoonka waxaana diiradda lagu saaray wada hadallada maxaabiista iyo howlgallada militari ee laga yaabo in uu ka dhaco Rafah daanta galbeedna ciidamada gumeysiga ayaa xoog ku galay magaalooyin dhowr ah waxayna xireen tiro badan oo dad Falastiiniyiin ah dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku qasbeen shaqaalahooda caafimaadka inay ka cararaan isbitaalka Nasir iyaga oo ka tagay bukaanada halkaasi ku jiray ururka ayaa ugu baaqay ciidamada Israa'iil inay si degdeg ah u joojiyaan weerarka ay ku hayaan xarunta caafimaadka Nasir Medical ee Khan Yunis qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in aysan jirin meel nabdoon oo ku taala Gaza iyadoo ku nuxnuxsatay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah ururka ayaa intaasi ku daray in ka badan 70% kaabayaasha rayidka ah iyo 84 xarumaha caafimaadka Gaza la burburiyay ama si xun loo gaaray ama si xun burburintu ay u gaartay geesta kalena golaha ammaanka qaranka ee Ruushka oo goordhow war soo saaray waxa uu yiri talaabooyinka Israa'iil waxay horseedi doonaan musiibo bini'aadanimo oo ku habsatay 2 milyan oo Falastiiniyiin oo ku nool Gaza iyo xasiloonida bariga dhexe Mareykanka iyo Britain ayaa isku dayaya inay dalalka gobolka ku jiidaan colaadda Yemen Ruushka waxa uu sheegay in Mareykanka mar walba uu yahay fawdo u joog doonayana in uu burburiyo dadka ama dalalka dhisan iyo sidoo kale in la laayo shacabka haba ugu badnaadaan kuwa Carbeed dhinaca kalena haddii aynu eegno sargaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa shirka ganacsiga iyo horumarinta ka sheegay in Gaza ay u baahan doonto qorshe dib u dhis aan caadi ahayn si ay uga soo kabato burburka weyn ee ka soo gaaray dagaalka u dhaxeeya ciidamada gumeysiga Israa'iil iyo dagaalyahanada xaqudirarka Hamas wuxuuna xusay in qarashka ku bixi doona dib u dhiska Gaza uu gaari doono ilaa 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah Richard Kozol oo ah agaasimaha UNCTAD ayaa sheegay intii lagu guda jiray shirkii qaramada midoobay ee Geneva in burburka soo gaaray Gaza uu 4 laab ka badan yahay burburkii ka soo gaaray dagaalkii 2014 ka soo socday 7 toddobaad waxa uu sharaxay in qiyaasta ay ku saleysan tahay sawirada dayax-gacmeedka iyo macluumaad kale wuxuu kaloo xusay in si dhaba loo qiimeeyo burburka Gaza ay u baahan tahay cilmi baarayaasha ay gudaha u galaan Gaza marka uu dagaalka istaago waxa uu sidoo kale sheegay in dib u dhiska Gaza ay u baahan doonto qorshe uu ugu magac daray qorshaha Marshall isaga oo tix raacaya qorshihii Mareykanka u dejiyay soo kabashada dhaqaalaha Yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida UNCTAD
waxay horay warbixin ay soo saartay bishii hore ku sheegtay in soo kabashada iyo dib u dhiska Gaza ay qaadan karto muddo aad u dheer. toddobaad ka hor xafiiska warbaahinta dowladda ee Gaza ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen ilaa 360,000 oo dhismayaal laga deganaa ayna ku noolaayeen dad kor u dhaafaya 70,000 oo qof, kuwaasoo gabi ahaanba burburay. 3 November warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Euro-Mediterranean ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada gumeysiga ay Gaza ku daadiyeen in ka badan 25,000 oo tan oo walxaha qarxa ah. tan iyo 7 Oktoobar ee lasoo dhaafay, Israa'iil waxa ay dagaal ba'an ku haysay marinka Gaza, taasoo keentay in 10,000 oo dad rayid ahi ay ku waxyeeloobaan oo u badan carruur iyo haween. waxaa u sii dheer musiibo bini'aadanimo oo aan horey loo arag iyo burbur ballaaran oo kaabayaasha dhaqaalaha ah. inkastoo weli dagaalada ay soconayaan, haddana dhinaca kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dagaalada foolka ah ee maanta oo Jimco ah ka soconaya marinka Gaza, aaga Khan Yunis waxaa la sheegayaa in lagu burburiyo 2 ka mid ah taangiyada ciidamada gumeystaha Israa'iil iyo sidoo kale 3 gaari nooca loo yaqaano cagafta iyo weliba 2 gaari oo ah nooca lagu daabulo ciidamada ee qafilan. waxaana sidoo kale halkaasi la xaqiijiyay inay jirto dhimasho dhaawac soo gaartay askarta ciidamada Israa'iil. hase ahaatee ilaa hadda khasaarahaasi inta uu leeyahay si rasmi ah looma sheegin ama tirikoob sax ah lagama sheegin. guutada Ciisadiin al-Qassam waxay sheegeen in madfaca Al-Yaasiin 105 ay la bartilmaameedsadeen gaadiidkan gabi ahaanba ay dhalaaliyeen. sidoo kalena waxa ay tilmaameen inay sii wadi doonaan howlgalladooda ka dhanka ah ciidamada gumeystaha Israa'iil, weliba nooca loo yaqaano ku dhufo oo ka dhaqaaq, yacni waa howlgal gaar ah isla markaana lagu bartilmaameedsanayo ciidamada cadowga goobaha ay ku sugan yihiin. marka madaafiic lala dhacana kadib, ciidamada howlgalkaasi fuliyay goobta waa ay ka laabanayaan. ugu badnaan 3 ilaa 5 ka mid ah iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa howlgalladaasi fulinaya, waxaana lagu baacsanayaa in ka badan 100 ka mid ah ciidamada Israa'iil iyo gaadiidkooda dagaalka. marka dhowr madfac oo Al-Yaasiin 105 ay la helaan gaadiidka, dib ayay u gurtaan ciidamada iska caabinta, taasoo ka dhigan in hadafkii bartilmaameedka la helay ama qorigii ama xabadii ay rideen aysan meel cidlo ah ku dhicin oo ay ku soo hubsadeen askari Israa'iili ah ama gaadiidkooda, taasoo iyaga guul weyn u ah. inkastoo hadda Israa'iil ay u soo kaba gashanayso weeraro military oo ka dhaca dhanka Rafax, haddana waxaa jira digniino xoogan oo arrintan laga jeedinayo. balse sida muuqata, Israa'iil waxay isku soo jeedinaysaa markan dad badan oo xitaa laga yaabay inay naftooda u baqeen oo ay carareen, laakiin laga yaabo inay hubka qaataan oo ay soo galaan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta. sababta oo ah haddii qof lagu dhexiro oo maanta oo dhan qofkaasi lagu dhibaateeyo qolka, ugu dambeyn qofka wuxuu isku dayi doonaa in uu raadsado fursad uu ku baxsado. si kale haddaan u dhigo, marka bisad qol aad ku xirto, qolkaasina aad isku daydo in aad ku dhibaateyso bisadaas, waxa ay ugu dambeyn go'aansanaysaa inay adiga ku soo weerarto si ay nafteeda u badbaadiso. taasna waxay ka dhigan tahay in xitaa dadka aan qaangaarka ahayn ee Falastiiniyiinta ay hubka qaadan doonaan oo ay dagaalka toos u gali doonaan. Israa'iil miyay iska celin kartaa malaayiin qof oo hub qaadatay? jawaabta waa maya, sababta oo ah waxay iska celin laayeen 100 ka mid ah dagaalyahanada Falastiin oo xitaa 2 ama 3 aag oo dhan u weeraraya. sidoo kale ma awoodaan in dagaalka xitaa markan ay ka celiyaan dhanka guryahooda, sababtoo ay tahay haddii meeshii ugu dambeysay oo Falastiiniyiinta u barakaceen looga daba tago, waxay ka dhigan tahay in haweenka xitaa ay hubka qaadan doonaan oo Israa'iil loo yaabi doono. aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu mahadsanid. barnaamijka ka xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi